waxaan doonayaa inaan muuqaalkan aan kaga hadlo koox dumar ah oo dhammaantood reer Mareykan ah oo leh waxaan dhoofinaynaa dhalinyaro yar ah isla markaana dhammaantood ay gadaal ka soo riixayaan kaniisado ummaduna aysan si weyn markaa aysan ugu baraarugsanayn. inta aan hadda ogaaday waa ilaa iyo 3 gabdhood oo kala duwan dhammaantood dalkan ay ku nool yihiin. muhiimadda ugu weyn oo aan gabdhahan u soo bandhigi doono waa haddii ay jiraan dad gabdhahan dhalay oo qaraabadooda ah inay markaasi qabsadaan ummadana ay ka qabsadaan haddii ay lunsan yihiin oo la dhax maray oo aysan ogeyn waxa ay gacmaha kula jiraan inay markaasi baraarugaan ummadda Soomaaliyeedna ay ayagu markaa indhaha isaga hayaan. haddii aynu marka guda galno muuqaalkan gabadhan ay hadlayso markii aad daawato waxay leedahay waxaan u baahanayaa arday ilaa iyo 15 ilaa iyo 20 ah oo markaasi aynu dhoofino ayaynu doonaynaa bay leedahay. faa'iideyso haddii aa u dhaxayso 15 ilaa iyo 20 waxaa rabnaa arday aan qorno u dhaxayso 15 ilaa iyo 20 haddii aad inta u dhaxayso live ugu imaada live-ka halkaas dadka ka qoraya yaa rabin noocaas ay gabadhaanu marar badan ku soo celcelisaa. marka aad qaybteeda live-ka aad tagto waxaad arkaysaa inay ku soo qorayso kaniisad ayaa dadka qaadaysa. dadka qaar ka mid ah oo tuhun iyo shaki ka qaba qorshaha kaniisadani markii ay damcaanayso su'aalo weydiiyaan gabadhan taleefanka way ku jaraysaa mana ogolaan arrinta kaniisadda markaasi laga hadlo. soo dhawaad barnaamijka ma la socotaa? waa la socdaa laakiin kaniisad oo shaqadeeda ay haysato aad profile-ka gabadhan ay ku leedahay barta TikTok markii aad gudaha u gasho fiiriso waxaad arkaysaa qof aanan garanaynin nin iyo naag waxa uu yahay oo iswalaaqaya oo markaasi Axmed loogu yeerayo. maanta arooskiisa waaye shaatigan iyo surwaalkan wuxuu leeyahay jaakad madow waxa uu xiranayaa u eg kabaha. anna waxaan ku yiri maya suudka waxaad u xirataa surwaalka jaakadiisa u eg xiro. maasha Allah tabarakallah sayid u faraxsan yahay Axmed. waynu arkaynaa marka midkaan inuusan Axmed ahayn. su'aasha isweydiinta mudan marka waxay tahay haddii Axmed ay kani u taqaano kuwa ay leedahay waan qaadayaa iyo kaniisad baa qaadaysa xataa haddii aynu ka soo qaadno xataa inay qaado waa maxay waxa ay ugu yeeri doonto suurayso saysa u ekaanayaan dadka dhalinyarada. dhanka kaleeto barta la yiraahdo Facebook oo aan isha aad ugu hay maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaan arkayaa 2 gabdhood oo kale ayaguna dalka Mareykanka ku nool oo mashruuciyo noocan markaa ka shaqeynaya. gabadha ugu horeysa waa gabadha profile-kan iska leh waxay leedahay waxaan qaadaynaa dad isla markaasna waxaan qaadaysaa hay'ad la yiraahdo KUS isla markaasna boostigaasi waxay ku soo attach garaysay ama ay ku dartay dhowr sawir oo ay ka dhex muuqdaan calaamadda markaasi Kirishtaanka. waxay isweydiin mudan haddii ay jirto hay'ad ummadda qaada waa maxay calaamadan sababta loogu daray idanta laga leeyahay waa su'aalaha ugu horeeyo indhahaygu markaa ay qabteen. baaritaan aan ku sameeyay bal inay jirto wax un hay'ad ah oo magaceeda la yiraahdo KUS oo ummadda qaada ayaan muddo kadib waxaan soo ogaaday inuu jiro school aviation-ka ah ama lagu barto diyaaradaha oo ku yaala gobolkaasi Texas oo marka magacaasi la yiraahdo. kadibna waxaan ogaaday in gabadhaanu ay iskuulka ka soo baxday muddo aan badnayn hadda ka hor oo ay ka qalin jabisay. laakiin iskuulkaani marka aad gasho website-kiisa iyo information-kiisa public ah ma arkaysid wax qaaditaan ah iyo wax missionaries ah iyo mashruuca gabadhu ay sheegayso meel ay ka soo galaan oo kale ma garanayo. laakiin waxa muuqata meeshan ayaduna inay ku jirto mashruuc kaleeto oo kii hore la mid ah. waxaa kaloo jirta gabar kaleeto ayaduna degan meelan aad uga fogeyn meesha iskuulkan uu ku yaalo ama aagaga magaalada Houston Texas oo ayaduna ay profile-kan ay leedahay. gabadhan waxay soo boosti garanaysaa isla same picture ee gabadhii hore ay soo boosti garanaysay oo ay ka dhex muuqato calaamadda Kirishtaanka. labadan gabdhood markaa xiriir ayay leeyihiin. gabadhii hore oo aan sheegayna waaba public arrinteedu. gabdhahan saddexda ah iyo gabdho kale oo laga yaabo markaasi inay jiraan mashruuc ay ka shaqeynayaan iyo waxa ay ummadda u sheegayaan waxaa dul hooganaya su'aalo aad u xoog badan. haddii ay jiraan ummad ay qaraabo la yihiin dad ay xaasas u yihiin dad ay ilmo adeer la yihiin iyo dad ila dhasheenba waxaan u sheegaynaa arrintaan ay tahay arrin u baahan isha in lagu hayo. ummadda Soomaaliyeed waxaan uga digayaa inay jiraan dad aad u tiro badan oo markaasi ku soo dhuumanaya magacyo kala duwan ummadana fasahaadinaya indhaha in lagu hayana ay muhiim tahay. intaas ayaan muuqaalkan ku soo koobaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.